السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan aragnaa sida coin-kan aad long iyo short u gali kartaa maadaama oo future-ka ama ka talagelinayso aad rabtid inaad coin-ka kor iyo hoos u gasho oo aad rabtid inaad faa'iido ka samaysid. Marka laba mid waa inaad spot u gashid ama future u gashid. Marka anaga future aan rabnaa waxaa taabanayna future-ka. Marka inta waaye cruise coin-aha gaar oo exchange-da sida maxi oo kale ama tan ama exchange oo kale aan isticmaalo leverage badan ay leeyihiin laakiin Bybit iyo Binance hadda saa u fiirisid coin-aha gaar hadda kan oo kale male 20x laakiin kuwaas waxaa laga yaabaa inay 10x ama leverage ay saaraan way diidayaan. Marka kuwan waa exchange yar yar waaye oo leverage badan ku siinayaan. Marka waa ka talagelin kartaa mar walba aad rabtid inaad kor iyo hoos u gashid. Marka hadda waxaan fiirinaynaa kan coin-aha gaar laakiin male oo leverage badan male. Haddaan fiirino marka intaa ka dheeranaysa leverage hadda kan 20x ku egyahay bes intaas 20x ku egyahay kor iyo hoos u galaysaa midka aad rabtid. Selkiis close waa ka short iyo long close short marka intaasaa galaysaa. Hadda kuwa aan fiirino oo exchange-da gaar aan fiirino Binance oo kale aan fiirinayna inta alfa waaye market alfa waa la soo geliyaa coin-anka yar yar oo inta badan ay dhaqaagaan oo dhaqaaq wali ku socdo ayaa la soo geliyaa alfahan. Marka kuwa gaar alfaha joogaan kuwa gaarna future ma joogaan kuwa gaarna intaa haddaa kelaysid exchange-da waxaa u tagaysaa maxi ama taas oo kale meelaha ka raadinaysaa midka aad rabtid oo inaad ka talagelinaysid. Marka hadda kan aan fiirino four hours waa shalay la soo sii daayay. Haddii aad fiirisid chartigiis ma qurux badna oo hal mar uu taagay 0.8 haddana wuu isku soo laabtay haddana wuu maray meelaha ku wareeganaya 0.5 four hours waa ka isaga intaas la keliya jiray. Order bookis waa ka selkiisi buyerkiis iska badan oo waxaa ka fiirinaysaa pricekiis iyo balancekiis limit transactionkiis intaa ka fiirinaysa order book waa ka marka aan fiirino oo future-ka aan fiirino bill oo kale hadda wuxuu leeyahay 20x haddaa rabtid waa saaran kartaa 20x bes ku ogyahay. Exchange kale haddaa tagtidna waxaa laga yaabaa inuu 50x ilaa 60x oo leverage ay saaran karaan laakiin Binance male adeegado waa ka lab oo kale hadda fiiri lab maalmahan oo shidna waa fiirinaynaa coin-ka aad rabtid magaca aad rabtid xagaa ku qoranaysaa soddon x ilaa 50x uu leeyahay. Coin-kan waa ka talagelin kartaa marka waa jiidaysaa ka talagelin confirm aad dhahaysaa waa aqbalaysaa kadib lacagta intaa gelinaysaa oo waxaad dhahaysaa short ama long midka aad rabtid lacagtana xaggaa dhigaysaa waa yareynaysaa kadib saas kugu furmaya.
buy long aad tiritid wuu kuleeyahay ma hubtaa inaad long u diri kartid intaas kuleeyahay anaga hadda ma rabno inaan buy dhahno exchange-ga caadi waa sida buy sell loo dhaho coin-ka waa kuwan marka hal muhiim waaye waa inaad kasoo fiirisaa coin-ka oo meeshuu yaalo oo coin-ka oo haddii aad aragtid oo exchange-da gaar intaa la keenin waxaa ka fiirinaysaa market meeshuu yaalo iyo meesha laga heli karo iyo address isaga ku dhisan yahay coin-ka tagaysaa kadib coin-ka aad rabtid intaas oo qoraysaa search aad dhahaysaa hadda kuwan maanta kuwa training bixiyo waa top green haddaad heshid kuwa oo mataqaana xoog oo u tirigareynaya waa u bixinaya kuwana trading hadday soo baxeen kuwana marka coin-ka waxaa fiirinaysaa meesha laga heli karo iyo meesha aan mataqaana laga heli karin hadda kan oo kale meme coin-ka waan fiirinaynaa inta suuq ku jirta waa supply waa trillion waaye total supply trillion waa market cap-kiisa waa 35 milyan waaye information aad fiirinaysaa all time high meeshu gaaray intaas 26 bishii May 26 intaas gaaray 3 maalin ka hor marka market-ka fiirinaysaa meeshii laga heli karo suuqa waxaa laga helayaa Uniswap oo Ethereum ku dhisan Uniswap Ethereum oo L-Bank oo exchange-gan Gate.io Maxi iyo Bullphone adiga intaas exchange ka helaysaa kuwa oo dhagsiga ah ka helaysaa kan Ethereum waaye lacag Ethereum u baahantay inaad gadatid kuwa kale USDT u gadanaysa exchange haddii caadi la keeno marka casharkan intaas u egyahay haddii aad cashar kale aad rabtiin oo aad sidee su'aal qabtiin committee waa noo muhiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.